waxaan dadka laga buuxiyey oo Itoobiya saana iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku siraysnayn cilmi marka laga hadlayo siyaasadda marna dhaqaalaha waa laga hadlayaa marna gobonnimada iyo waxa laga hadlayaa siyaadada dalka marna waxa laga hadlayaa xiriirka ganacsiga madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani barnaamijka uu Itoobiya ku taageerayo kuma taageersanin haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland madaxweyne laba mid ama dhalinyarta reer Puntland baa Puntland yeelanaysa ama Itoobiyaan baa yeelanaya aniga maanta nin dhalinyaro baan nahay waxa aan la dagaalamayo oo dagaal kula jira waxay tahay cadawga ku soo duulaya dalka ee Itoobiya madaxweyne adigina hogaaminayay haddii aad tiraahdo Itoobiyaan soo dhaweysanaynaa diyaar uma nihin waana ka soo horjeensanaynaa waxaana diyaar u nahay in dhalinyarta haddaan nahay inaan kaaga soo horjeensano arrinka Itoobiyaanka aad soo dhaweysanaysid meel kasta ay joogaan cadawga Itoobiya Soomaaliya cadow bay ku yihiin dhalinyarta Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel kasta joogtaan cadawgiinu waa Itoobiya madaxweyne kuguma taageersanin kacdoonka ugu horeeyana wuxuu ka bilaaban doonaa Puntland sharmaake markasta oo muuqaal soo duubo wuxuu afkiisa ka ilaalinaya oo uu ka dhowraya oo uu ka jeesjeesanaya inuu al-shabaab xaqiiqada u sheego dhalinyartana u tilmaamo cidda dilaysa ee dhiiggeeda daadinaysa inay tahay khawaarijta al-shabaab waa maxay kacdoon aan ku quntamin cidda dhibta geysanaysa oo laga meermeerayo oromana nayra hor wado hadda ka hor sharmaake waxaan ku yiri sharmaarkow shacabkan Itoobiyaanka aan hubaysanayna dalkeena jooga waxa ka daran argixisada oo dawlad inaan noqono inay ka hortaagan shacabka inta waxa weey shacabka Itoobiyaanka ku diraa dhalinyaradan argixisada meel looga soo jeesto waxa weey ayaga cadawna ku ah sharmaake fiidiyowgii uu jarjaray wuxuu ka soo dhigay wax iga dhigay shacabka Itoobiyaanka waxa uu difaacaya hawshii ahayd argixisada cadawga Soomaaliyeedna shibku xataa muus soo halqaaday kiis waxa dhacay waxa weey maalinkii lagu leeday argixisada ka dambeysay xeebtaleeda ka dhacay sharmaake shacab dhalinyaradii argixisada ka muus hadalna shibbu yiri oo dhalinyaradii Soomaaliyeed wuxuu yiri dawladda hal weeraro hal baab iyo wadanka hal jijibiyo bal fiidiyowga la daawada beentay u qabtaan mudaharaad kaliyaata waxba ma tarayo dawladda in la xisaabtamo gacan qaadna la sameeyo waxaan ahayn waxba kuma laha waxaan leeyahay mudaharaadka sii wada sii sameeya ay gabba Soomaali waan aqaanaayo waxa weey dhanka qabiilka wax ka fiiriya dhanka qabiil wax ka fiirin lahaydeen oo nin koraan soo qaato isaaq ahaana aniga sharmaake hal reer baan u wadana marka sharmaake waxaan rabaa inaan iraahdo sharmaake inaad dad wax u jeeda isla fiyoodaan laha waxa weey nima argixisal sharmaake aan iska dhicino ii soo qorayay adigu Nairobi baa joogtaaye sharmaake dalkii uu joogaaye kiisa gelin wada sharmaake Nairobi isla joognaa waxa weeye mid kale ah waxa weeye kacdoon iyo baqdiin horta isma galaan kacdoon iyo baqdiin isma galaan ama inaad faraha ka qaado iska rarnaatid oo aad yeeshid in lagu rarto ama in aad wax aad sheegaysid adigu hormuud aad u noqotid ee aad hogaamisid wax ka dhaxeeya ma laha صباحية وحير وكادية وكأس هاي موجودة هذا اللي فريسانية أرجع عنك وأنا اللي له هذا فريسانية وكأس موجودة لويس في وكفريست بوريد بوتا وكتب سنية كنتي أنا وكيا بنا نقشدان مش كيماتي تبغى واحد شراء صومالية أو عريمة oo xal siin u fahanti oo ay dhibka tahay laakiin dadkan falsafad kale adeegsanayaan saxaabay muuqaalkan si shirgareeya ma garateen dadkan waxa laga qabto dadkan wadanka fidmo weyn bay ku soo wadaan ma fahantiin dadkan wax kale damacsan madba kale aansiin oo jeeda أقول لي والله سويت شيء داي فيري ماشي وبطاصو ماشي ساوي رقمي وبطاصو ساوي صعدة متكلا هذا الصورة يا ساوي شيء متكلا كوفاي سنة
labo galab walba waa saas midka hadda ku farsan kaa cimaamada wata fiiri muujeeda hadda ku farsan waa ku fariistay waana soconaya ogow inta hadda arkaya waa kii saddexaad muuqaalka intaa duubayana waa kii labaad marka saa oo arka saa oo fiiriya waa ujeedaan dadkan waxaa laga qabto hadda waxaa laga qaban wallahi dhibaato weyn bay keenaya markaan mujeedaan gargaxan kuwa oo kuwa